abbaara 11 duhurnimo iyo dheeraad ayaanu ka ambabaxnay magaalada Hargeysa. kolka waxaanu cagta saarnay jidka qabta magaalada Berbera. haddii aanu indooro saacad iyo wax ku dhow soconay waxaanu gaadhnay degmada Laaskeel ama Dacarburuq hadba kaadu taqaan oo in durugsan u jirta magaalada aanu ka soo kabaylanay maanta duhurkii. degmada Laaskeel ayaanu waqti nasiima iyo weliba nasashaa ku qaadanay 5:20 markii ay tilmaamaysay goor sheegto ayaanu galab carrownay gubanka hoose ee gobolka Saaxil gaar ahaan deegaanka Ragaadweyn. halka waxaa si rasmi ah uga bilaabmay socod luga oo laga gaadhayo isla markaasina lagu tagayo gal xidigaale. waa halkay daaran tahay ujeedka warbixinteeniyo badi dhulkii aanu sii maraynay intii aanu sii soconay waxa uu ahaa mid abaara oo imika uun ka soo doogay abaar. midna waaba mid abaara oo isagu haatan roobabkii guga aysan helin oo xoolaha laga foofkeeyo. goor fiidcawla ayaanu tagnay Ramaadweyn oo saacaduna ay sheegaysay 7:24 habeenkii seexanay aroortiina waxaanu qorsheynay socodka iyo weliba sii wadashada safarka yagii. galabnimadii Khamiista ayaanu mar kale u biyeysanay lug dheer oo socoda taasi oo iyana saacado doora qaadatay. buuraha idiin muuqda ayaana la sii dhabax jibaaxayay intii aanu lugaynaynay. yeelkeeda markani waxaanu u dhaqaaqnay jaha galbeed. kolkii aanu cambaar soconnay waxaanu gaadhnay halkani oo halkii dooxa caloole iyo weliba kan aanu dhex marayno ee fargobweynaha iskaga darsamaa. haddii aanu sii soconnay ugu dambeyn waxaanu soo gaadhnay tuulada uu galku ku yaalla amase ceelku oo weliba ahayd mid aad u durugsan waaga iyo markii aanu tegaynay. kolal iyo kolkii aanu duhrada soo gaadhnay ee aanu la kulannay rag wixii meeshaasi joogay bariid iyo salaan kadib waxaanu weydiinay dhinaca ceelku naga xigo. hase yeeshee xoogaa kadib intaayna waraysteen nana weydiiyeen waxaanu u soconnay iyo weliba halkaanu ka nimay. haata waa kuwanoo wayna gelbiyeen waxaanay noo kaxeeyeen dhankii ceelka. halkani waa deegaan taariikhiya isla markaasina ah deegaan qadiimiya oo ay ku yaalaan asaare qadiim muddooyin hore oo qarniyo fog ah. halka kan laga qoday sida ay rumaysan yihiin dadka deegaanku ayaanu booqasho ku nimid. iminka haatan daawadayaal waxaa iga dambeeya oo gadaasheeda yaalla galka caanka ee gal xidigaale kaasi oo mid qarniyo fog iyo muddooyin hore loo qoday. dadka deegaankani ayaa rumaysan in galkani uu jiray ku dhowaad qarni ilaa 2 qarni. haddaba sheekadan oo faahfaahsan waxaanu kala sheekaysanay isla markaasina wax ka weydiinay dadka deegaanka iyagoo nooga warramay amuuraha galkani u khaaska. dadka deegaanka qaarkood ayaa aaminsan in galkani caafimaad iyo waxyaalo la mid ah laga soo raadsado sidoo kalena xoolaha kuwada xanuunsanaya lagu cilad bixiyo halka sidoo kalena waxyaalo taasi la mid ah mase la halmaala galka kan laga faa'iido. geesta kala daawadayaal waxay indhaha ugu qaban karaan way arki karaan intaad galkani joogto waxyaalo galkani lagu xidhxidhay sida ay noo sheegeen dadka deegaanku. sheekadan oo faahfaahsan nala daawo. ka hor intii aanaan soo gaadhin galka iyo weliba tuulada waxay dadka qaar noo sheegayeen waxyaabo kala duwan. barhkood waxay noo sheegayeen inay ceelkani qodeen qurumo hore. qaar kale ayaa iyaguna tibaaxayay in galkan u daloola badda. kuwo kale waxay noo sheegeen in laga helo quba kalluun iyo waxyaabo kala duwan. dadka deegaamadu waxay galkani u isticmaalaan siyaabo kala duwan iyo waxyaabo kala gedisan. barhkood waxay sheegaan in xoolaha lagu daweeyo, qaar kalena waxay sheegaan in xitaa dadka lagu dabiibo. sidoo kale waxyaalaha kala duwan ayaad arki kartaa waa agagaarka galka laga lula. dadkaasina ay ku samayn jireen arrintaasi. isku soo wada duubo bal haynooga warramaan qaar ka mid a dadka aqoonta durugsan u leh galkani qadiimiga. sidoo kale waxay tibaaxayaan inay jiraan waxyaabo dadka galkani ku soo jiita ama hiid u kaxaysta xagga harada iyo kayn agagaarka galkaasi ku taalo oo lafa laga lulay. waxaana intaasi raaciyeen inay jiraan oo dadka qaar ay sheegayaan in galkani u daloolo xagga iyo badda. waxa kaloo ay sheegayaan inay jiraan dad galkani lagu waayo raq iyo ruux meel ay dhigaan aan la ogeyn isla markaasina lala yahay. waa ka sheekh maxamuud axmed xuseen oo isagoo ka mid a dadka amuurahaasi ama sagalkaasi aqoonta durugsan u leh haynoo sharaxo inta uu ka yaqaana galkaasi. halka waxaan ka warramayaa macluumaadka galka meesha laga gal xidigaale
ayaan macluumaad ka siinaya xog inamadan saxaafadda galku wuxuu ahaan jiray berigii hore meel xoolaha laga darmiyo laga jeel bixiyo ayuu ahaan jiray waxa uu ahaa meel la yidhaahdo waxa degan jin oo haddana lafa iyo wax laga lulo oo dadku saacido kale ka wataan ayuu ahaan jiray wuxuu ahaa meel ama inay cilmiyeysan tahay dadka reer miyiga ah ee dhulka jooga ay wataan iyadoo oo aanay wax tiknoolajiyada ay haysteen oo waxbarasho aanay jirin haddana iyaga caqligooda ayaa wuxuu uu siiyey meeshu inay cilmiyeysan tahay waxa xoolaha waanigaa sheego saasaa loo ohan jiray intoona aniga lagu qalo waxaa la odhan jiray dadka waxbaa ku jira dadka jiito galka la gala laakiin wax la sii jiidaya marna maan arag waxaa jirtay in intoo aniga lagu qalo lafaha laga lulo kayn geed waxa iminka la yidhaahdo waxa uu leeyahay wuxuu u daloolaa badda baa la yidhaahdaa maahee waa asaaralqadiimina waa la yidhi waa asaaralqadiimiyo waxbaa ku jira kale ayaa la yidhi waa meel iminka waa magaalo waxaanu leenahay marka la leeyahay galxidigaale dadka in yar inta dadka dhulka maaragtay hay-adaha samafalka bixiya waxaanu sheegaynaa magaalada degan halkaa inay soo arkaan ummadda degan iyo dadka jooga iyada oo ay qayladhaan markaas iga tahay oo inamadu tay u socdeen aanay hayn waa iga kororsiintaa yare waa layga raalli ahaanaya haddii aan u noqdo galka iyo sidii uu ahaan jiray dhaqankii hore waxaan arkay baalkii dad baa ku muxuu ahaa bahal baa wax jiidanayaa ku jira tii horra ku dabaalanayaan baan arkay caafimaad ahaan waxaan arkay waxa aan kaloo sheegaya galku abaar iyo go iyo jiilaal abaar iyo doog wuxuu taagay maar keliya hoosna uma dhin korna uma soo kaco daduu liqay oo la waayay way jira meelay ka baxeenna allahu aclam meelay ka baxeenna iyo meel la geeyeyna allahu aclam dee wuxuuna dhigtayna wixii jiidanayay unbaa qaatay wixii jiidanayay macluumaadka galka marka la yidhaahdo xog inta ka hay dadku xitaa intaanay ka hor waraysigana siinin waxaynu uga sii degayeen inaanaan marnaba biyaha horowgala ama ku dabaalan haradan oo ay dadku sheegaan in kalluun iyo quba laga helo sidoo kalena ay tahay mid ka duwan dhadhan ahaan biyaha kuwo kale sidoo kalena inay jiraan wax dadka ku jida galka ayaa waxa markani sharaxaya Kayse Saleebaan Xasan waa isagu nin ku dabaashay galkan waa kan isagoo sharaxaya waxyaabihii uu kala kulmay galka iyo inta uu ka yaqaano hawayaan waxaan ahay anigu bulshadii ama degmadii aad ugu dhoweyd ee deegaankaba ahayd in badan baan ku dabaashay waxaa wax jiidanaya anigu kulamaan kulmin laakiin galku wuxuu yahay wax ka bedelan sida galaalka iyo dooxiyada hareerihiisa dhadhan ahaan biyihiisu way ka bedelan yihiin waxaa ku jira kalluun waxaa ku jira waxaan la idhaaho diinbadeed annagoon aada u aqoonin aanu ku yar astaynayno malcuumaadii caynkaasa oo badaha lagu arki karo ayaa qayba kaga jira biyuhu waa biyo aada u cajo badan waa biyo midab ahaan aanay saaruqu yeelanin waa biyo shiilan sida kuwaa badda waa biyo ka bedelan biyaha beriga ee la jaarka ah ee dooxan ka midka ahuun baalihiisa ku yaalla ama kuba dhow waxaanu leenahay wixii cilmi kororsi
iyo soo eegis u yeelan karaa inay aada ugu cajabi doonaan hadday soo eegaan waxaanu ku dareen qabnaa inaanu biyaha beriga biyowga lagu arko wax la midaba aan la arag horta inta annagu aanu ka warhaynay dee gobolladeenna aynu sii anbaqaadne weli xogta haradani ama galkan oo ah mid aan yarayn ayaynu hadba dhinac ka eegaynaya cabdiraxmaan oo ka mid a dadka deegaanka ee subax iyo galabba ka warhaya galkan waxa uu sheegayaa islamarkaasuna inooga warramaya inta uu ka yaqaano cabdiraxmaan isagu lama qabo dadka fikirka ah inuu galkani badda u daloolo waa kan isaga oo ka hadlaya arrimahaasi dadka bar waxay aaminsan yihiin inuu ka mid yahay qayb badda ka mid oo badda u daloosha laakiin anigu waxaan beeninayaa taa badda u daloosha inaanu ahayn waayo badda ma metelo meel kama metelo biyihiisu waxay isugu jiraan qadhaadh iyo macaan waxaa laga dayaa waxyaalo caafimaad ka mida oo dadka buka ayaa lagaga dii jeeraale caafimaad ka hela oo la keenaa oo loogu maydhaa xoolaha buka badh baa loogu maydhaa oo iyagana la geliyaa laakiin galkani wuxuu ku wanaagsan yahay dalxiis haddii laga dhigo caalamiya ayuu noqon karaa marka halkaa arrin marayo ayaa waxaan ugu soo horay roob hase yeeshee waxaanu habeenkii u hooyanay deegaanka odayaasha deegaanka ayaa nooga warramayey habeenkaasi wax kasta oo ku saabsan harada amase galkan walow ahayd jir galkan lama joogin wakhti la martiyo reer guuraaga laakiin roobka ayuunbaa nugu nageeyey waxay taladayadu ahay soo laba noqosho waasan alla noo beri markii nin iyo geed la kala gartay ayaan ku kallahay galka si aan u soo dhammaystiro howlihii aan u socday iyo weliba warbixin xaqiiqa ah ujeedka aan daakiraaddii u kaahimay ayaa ahayd inaan soo arka kalluunka la sheegay laakiin waxaan arkay wax ilmo aragtay ah oo kalluunkanuu noqonaya mid doqon magarate ah markii aan soo laabatay ayaan kala sheekaystay dadkii arrintaa waxaana ii sheegeen in mar doox haddaad ku soo fatahay amase ku soo faruurmay ay kalluun badan misena waaweyn dabadda uu soo saaray daadkii halkaasi haleelay taasina ay sababtay in kalluunkaasi yaryar ee aan loo aqoonsan karin inuu kalluun ku jiro ay meeshaasi ku jiraan waxa kaloo ay ii sheegeen galxidigaala waa hara amase gal ku yaalla buuraha dhexdooda aagga xagga iskaga daraan dooxada dacarburuq iyo dooxa hargeysa labadan doox ayaa waxaa iskaga daraan agagaarka uu ku yaalla galkani amase haradani sidoo kale galkani waxa uu ku dhex yaallaa buuraha dixda ma aha mid mar qura isbedela biyihiisu waana mid ay gu iyo jilaal biyahaasi halkaasi ku jiraan oo aan qurin si kastaba ha ahaatee galkani goobta uu ku dhex yaalla waa buuraha dixda dhexdooda waxaanaad ku tegi kartaa gaadhi iyo lug walow ay yaro adag tahay marinta buuraha dhexdooda amase waddada tagta haddana waa qushi iyo waa tegi kartaa waana goob ku fiican dalxiiska haddiiba la daryeelo mar kale ha inooga warrama cabdiraxmaan xogo kale oo ku saabsan galkan amase ku duugan arrimo kale biyihiisu waxay isugu jiraan qadhaadh iyo macaan waxaa laga dayaa waxyaalo caafimaad ka mida oo dadka buka ayaa lagaga dii jeeraale caafimaad ka hela oo la keenaa oo loogu maydhaa xoolaha buka badh baa loogu maydhaa oo iyagana la geliyaa laakiin galkani wuxuu ku wanaagsan yahay dalxiis haddii laga dhigo caalamiya ayuu noqon karaa nasiib darrase waxaa jirta meesha uu ku yaallo oo la yidhaahdo dix galbeed inta badanna lagu tiriyo deegaanka saaxil oo aan maroodi jeex aan ahayn nasiib darrada weyn waxa ay tahay gobolka saaxil ma tirsato maroodi jeexna ma tirsato awdalna ma tirsato waa sifeeriya waa yeel 9 jiri bal isaguna ha inooga warramay inta uu ka yaqaano galkan walow uu sanado badan iyo in doora soo jiray isla markaasina sida uu ii sheegay uu ku garaasaday galkan bal isaguna ha inooga dhaco xogaha kale ee uu galkani ka hayo amase uu ka og yahay kolkaa galkanna waxa weeye galku dee in badan buu jira warkiisa ee magaciisuna waa dheeri ilaa imanka markii ugu sokayso 100 sannadood buu ahaa dadka Soomaalida
intii Soomaali waqooyi way ka waraysaa kolkaa dabeed cilmigiisa nin magaalo baa ka waraya markaa waxa weeye dee galkan in isagana waxa laga qaadeen beydkiina lagu soo kordhiyo waa dee beydkiin leeyahay ama magaalaha noqoto tukaadeen noqoto masaajidda noqoto ciyaal wax laga qaado ana horta saasaan qanaan wadanka haddii ay dawladdu aanay noo baahnayn hadday u yadaa sheegi markaa waxa weeye dee galku waa gal qadiimiya haddii beydkiin leeyahay waxa ku jirana waa loogi dawladduna hore u soo maray wixii intaasi ka dambeeyeyna su'aalahan ayaa weydiiyey odaygan 9 jirka sheekadan ayaana dhex martay arrinkuna sidan ayaa u dhacay daawadayaal sugayna maxaa ka jira galka dalxiis in uu kalluun iyo waxyaalo noocaas ah kalluun ku jira muriyeero badan baa ku jira kolkaa dabeed anagu cilmi ma lihi haddii beyd ka faa'iideysan weyn kalluunka ku jira waan uga faa'iideysan weyn kala dana cilmi u garanay iyo miyaanu ka soo saari karayna wixii lagu qabanayay inta bahay biyaha galka ku jira biyuhu waxa weeye biyuhu dhan waa qadaan dhanna waa ka macaan markaad u sii fiirsato waxay dhadhamayaan markaad u sii fiirsato biyihii samsam ayaa dhadhamaya markaad u sii fiirsato carabka sii dhacso waa biyihii samsamku ayay noqonaya biyaha samsamka macaan ahayn qadhaan ahayn oo wax yilix jilicsan kolkaa waa biyihii samsamko kale iyo biyahan dhadhamaya kuriya waa biyo isku wada jira kolkaa cilmigooda ilaahuma gaadha ya waxaad ka warantaa dalxiisayaal galkayda ku yimaada intee in lag bayda ku timaada waxa dalxiis soo hagaagsan qolada gaalada mooyaane dalxiis hagaagsanoo moose waxaase annagu maana aragay tuugay ku yimaadaan baa layidhi nama soo maraan tuugay ku maraan xaggaasay naga maraanoo dee tuugay ku maraanoo dee way ka baxaan dee saasuna waa jirtaa haye waqti xilligee leeg baad baratay magalka dee ilaa 80 ayaan bartay adigu daadaaduna aad u weyn dee dadaydu waxa weeye waa 9 maanta 9 baa taagan tobankaa daa intaaba ugu jira igana sii daweyn abana ugu jira soo maad garan waa qarmi ayuu galkan weeye waxa la keenaa dad iyo xoolo wixii xoolo la keeno maxaa looga jeedaa miyaa lagu waxa laga dhiganayaa dawo looga jeeda dawada waa laga helaa wixii ilaahay ku daweey ariga waa laga geliyaa marta laga geliyaa shaqalaha laga geliyaa haddii dadka waxa laga geliyaa cudurrada dabaysha ayaa laga geliyaa haddii beydkeedle waxa weeye ceelkan waa dawo yaa 100 cudur buu ka dawo yahay soo maad garan markaa dabeed dadku wuu maydhashan yimaadaa dadku tuulooyinka waa laga yimaada goormaad magaaladan aasaastay magaaladan waxaan aasaasay anigu tiradeeda iyo basuuskeeda ma aqaanee waxa weeye imika 11 sannadood ayaad aasaastay